maalinba maalinta ka dambaysa dalkani Kenya qisooyinka way iska soo daba dhacayaan maanta waxaa la sheegayaa in nin askari ah xalay saq dhexe oo girlfriendtiisa ku dhex toogtay meel baar ah oo ay ku qamreynayeen baarkana iyada ayaa iska leh baarka ay ugu yimid baarka dhexdiisa ayaa waxa uu ku qabsaday sababta aad ula hadlayso hebel waa maxay khiyaanadan ay wado sheeg sababta aad ida u marayso nin kale ayaa meesha ku jira uu maseeray oday qorigiisa ayuu wate islaanta ayuu ku buuqi iyo qaylidii markay badatay nin iska cabtooy ah ayaa isagana damco inuu kala qabto oo kala reebo oo maxaa soo dhexgeli way ku dhacday islaantina way ku dhacday khalas meesha ay ku dhinteen ninkii hadda askarta ay gacanta ku dhigtay maxkamadda ayaa la soo taagi doonaa dabcan kiis noocaas oo kalena dee waa xabsi daa'im dalkani Kenya waa qiso cajiib ah oo lala yaaban yahay dabcan dadkuna ay aamini la yihiin maxaad ii khiyaanaysaa hebel maxaa ula socotaa iyo sheekooyinka noocaasi ah inta badan ayaa la isku dilaa ninkani ma aha kolley waxa ka keensiiyey wax sahlan oo yar ma aha waa masiir awgiis ayaa waxa uu u dilay qoftiisi iyo nin kale oo markaasi goobta joogay oo la dhahay wuxuu doonayay inuu kala celiyo nin iyo naagtiisa dabcan waxa ku baxaysa hadhaxgalin nin xanaaqsan naagtiisa ka celinin labada hadda way dhinteen meedadkooda ayaa la geeyay moojriga isagana dabcan booliska ayaa gacanta ku dhigay waa qiso la yaab leh dhanka kale dalkani Kenya dabcan waa la socoteen maalmahan dambe waxaa jira oo aad loo hadalhaya dibadbaxyada iyo mucaaradka oo si xogeysanaya iyo shacabka oo ku kacsan dawladda William Ruto waa uu hadlay waxa uu na dhahay dibadbixi maalin hore kadib dhamaantiin waxa taagantiin oo leedihiin Ruto must go yani xilka ka deg ayaad leedihiin sideen uga dega xilka keena qof aniga wanaagsan iga fiican oo aan jagadani ku bedelo ayuu taagan yahay madaxweynaha dalkani William Samoei Ruto mucaaradka iyo dhalinta iyo shacabka intooda badan ayaa waxay ku dhaliilayaan madaxweynaha sicir bararka iyo xaq jirka. And they have said three things. They have said they love Kenya, but they hate the leaders. And they have talked something about one term. And they have said Ruto must go. Those are the things I have listened to, you know. And therefore, I want to ask them this, because if you truly love Kenya, as you say, don't ban your country. booliska dabcan ay kula kacayso shacabka iyo canshuuraha oo zaid ka noqonayo maalmahan dambe ayaa lagu eedeynayaa Ruto dawladiisa isagana waxa uu taagan yahay hadii ay dabcan noqonayso in aniga aan soo noqdayo in kale horta bal suga taamkani aan dhameeyo waxyaabaha aan idin ballan qaaday badankooda waan fuliyay maxaad u arki laadiin ugaalida ayaa ugu daran waqti shacabka ugaalida waa soo dajiyay xilka markaan qabanayo ugaalida qiimaheeda waad garanayseen hadda qiimaha inta ay tahay waad arkayseen hadii uu jiro shakhsi iga wanaagsan oo qiimaha ugaalida hoos u sii dhigi kara ugaali waa soorta qiimaheeda hadii uu jiro qof hoos ka sii marin kara ani inta aan hoos u dhigay soo istaajiyo ayuu leeyahay. And if it's a question of terms, the constitution already has sorted out and settled the issue of terms. Terms are limited. You can either be one term, you can be two term. Maximum. You cannot have more than that. So what is this craze about terms? The constitution already provides for those terms. So please, let us look for the solutions of our challenges. And solutions cannot be found in terms. Solutions are found in strategy. laba wada unba furan hadii qofka uu noqonayo one term iyo hadii uu noqonayo two term labada unba yani sharciga mise constitutionka uu qeexaya hadii aad leedihiin anigu waa one term mise two term waxa ma iga gelin laakiin keena qof iga wanaagsan oo i bedeli kara waxba isku ma haysaane mucaaradka ayuu markaasi ula jeeda hadalkaasi hadii ay noqoto Ruto in uu tago yaa intaada ayaa uu leeyahay Ruto must go sida ku dhici kartaa sida u baxa xilka sida uga dega ayuu leeyahay waxaa jira sharci dastuur hadii la doonayo in
xilka liga xayuubiyo liga qaado dastuurka unba iga qaadi kara ayuu taagan yahay Ruto haddii hal mar aan madaxweyne noqonayo 5 sano mise haddii aan labaysanayo 10 sano aan ka dhiganayo taasi waxay idin jirtaa 2027 xilliga doorashada. What do you mean? What do you mean by Ruto must go? How do I go? Because we have a constitution in place, dear people, right? Yes. If you want Ruto to go, please, my simple advice to you, look for a better plan. Convince the people of Kenya that you have a better plan. isdajiya asxaabta sidaas ayuu leeyahay Ruto. dhanka kale dibadbaxyadii maalin hore ee Arbacadii kadib dabcan waa la socotiin khasaarihii ka dhashay waxaa jiray in guwate saldhig booliis sidoo kale la guwe kamad iyo baabuuro badan lagu waayay khasaare aad iyo aad u tiro badan dukaamo badan ayaa la bilqaystay agab badan ayaa la xaday waxyaabo badan ayaa dhacay oo khasaare aad iyo aad u ballaaran ayaa boqolaal iyo kumanaan qof ka soo gaaray dibadbixi Arbacadii haddaan soo dhaafaynay inkastoo shacabka mise dhalinta dibadbixaysa ay leeyihiin inaga ma ahayn dadka geysanaya khasaarahaasi balse waxaa jira shakhsiyaad iyo dad mise waa tuugo ay dawladdu soo abaabushay doonayso inay sumcadda dibadbaxani ay ku halayso waa lis haystaa so dibadbaxyadaasi waxaa ka dhashay khasaare aad iyo aad u weyn hadda waxaa la hayaa oo gacanta lagu soo dhigay 25 qof 5 qori oo booliska laga xaday iyadana waa ay jirtay saldhiga booliska ee la gubay ayaa waxaa lagala baxsaday dhowr qori waana la baadigoobayaa 25 qof waana lagu soo dhigay gacanta isla hadda sida ay dawladdu qeexayso. dhanka kale ismaamulka Migori waxaa gacanta lagu dhigay nin 32 jir ah oo safrinayay xashiish qiimihiisa yahay 13 milyan iyo 700,000 lacag Kenya waa laga taajirooyaa baasha. waxaa sidoo kale laga helay baabuurkiisa taargooyin aad u tiro badan ilaa iyo 4 xabo kala duwan ah identity-ga baabuurkaasi sifa loo ogaanin meelba markuu gaaro dabcan waa ka bedelaya taargada gaariga si uu u baxsado laakiin booliska dalkani Kenya ayaa gacanta ku dhigay waana la qabtay mar walba maalin walba waa khasab in la soo qabto qof loo haysto daroogo haddii ay noqoto xashiish haba u badnaatee iyo darogooyinkan kale ee maandooriyaha baabuurka uu watana waa mid madow oo Toyota Kruger ah waxaana saarnaa ilaa iyo 8 jawaamo ah oo xashiish markaasi xambaarsanaa kilogram haddii la dhaho waa 457.6 kg saldhiga ayaa la geeyay maxkamadda ayaana la soo taagi doonaa odaygaas. dhanka kale madaxweynaha dalkani William Samoei Ruto ayaa isagana maanta waxa uu kala shandheeyay militariga dalkani isbedelka mise waa shandaynta uu sameeyay William Ruto waxaa ka mid ah Major General David Kipkombay Ketar in la dallacsiiyay lagana dhigay Lieutenant General sidoo kalena laga dhigayo commanderka Kenya Army marka isbedeladaasi ayaa aad looga hadalhayaa dhanka Twitter madaxweynaha oo isku shandayn sameeyay kala shandheeyay militariga soona saaray warbixin cusub oo ku saabsan xilalka kala duwan ee militariga. dhanka kale ismaamulka Isiolo waxaa is hortaagan maamulka hadda ee barasabkaasi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee ismaamulkaasi ayaa is hortaagan kadib shalayto markii ay xilka ka xayuubiyeen barasabka ismaamulkaasi Cabdi Guyo ayaa isagana diidan oo haysta amar maxkamadeed oo maxkamadda kaga hortagaysa xildhibaanada aqalkaasi in ay xilka ka xayuubiyaan barasabka isaga waxa uu taagan yahay ma dhici karto in motionkaasi la baasmariyo 18 xildhibaan MCA-yaasha ayaa halkaasi joogay 16 ka mid ah way isku raaceen in barasabkaasi isoo gavanaha xilka laga qaado sidoo kale laba waa ay ka gaabsatay inta kale way maqneed laakiin quorum haddii la dhaho waa ay ansaxaysaa inkastoo hadda ka hor maxkamadda Isiolo ay joojisay barnaamijka soo motionka ah in
ninkani xilka laga qaado. taasi ayuu haystaa. laakiin guddoomiyaha aqalkaasi waa uu ansixiyey, waa uuna baasmariyey. haddii ay dhaqan gasho waxay noqonaysaa Cabdi Guyo inuu ka soo hormuuqdo aqalka sare ee dalkani ee Senatka si uu markaas isku badbaadiyo. haddii aqalka sare ay isku raacaan in ninkani si cadaalad ah mise xaq ah xilka looga qaadayo, dabcan waxa uu noqonayaa barasaabkii ugu horeeyay ee ismaamulada NFD haddii la dhaho xilka laga xayuubiyo isagoo weli aan dhamaysanin muddo xileedkiisii. Cabdi Guyo qisadani dabcan isaga mid gooni ayay u tahaa oo way taawanaysa. hadda ka hor isagoo ah MCA mise xildhibaanada aqalka hoose ee Nairobi ayaa waxa uu baasmariyey mise uu furay motion noocani oo kale ah ka dhan ahaa xilligaasi barasaabkii Nairobi ee Mike Sonko ayuu nafta u keenay, wuuna ku adkaystay motionkaasina waa ay u hirgashay waana la baasmariyey. sidaas ayaana xilka looga xayuubiyey Mike Sonko waaga ayada ahayd. balse hadda jagadii Mike Sonko oo kale isagoo haya oo governor ah ismaamulka Isiolo wadana ka ah ayaa isla tiyo kale haysataa maanta. MCA-yaasha ayaa ku kacsan, wayna doonayaan, wayna baasmariyeen, wayna codeeyeen in ninkani dabcan uu sii ahaan karin barasaabka mise governaha ismaamulka Isiolo. maxaa lagu eedeynayaa? maxaana lagu haystaa? waxaa lagu haystaa in uu ninkani jagada uu hayo ee barasaabnimo ee governornimo inuu si xun u adeegsanayo. waxaa sidoo kale lagu eedeynayaa in shaqooyinka uu ku bixinayo si wajigarad ah. sidoo kale in ilaa iyo 36 la taliyaal ah uu shaqaaleysiiyey. waxa uu ku qasbayaa chief officers shaqaalihiisa chief officerska ah in 2 sano ay ku ekaato heshiiskooda, in badanna uu xilka yacni uu kaga xayuubiyey 2 sano kadib mise contractiga uu u soo celinin. marka dhowr shay arrimo badan musuqmaasuq iyo waxyaabo kale oo aad u tiro badan ayaa ka mid ah waxyaabo lagu eedeynayo. waana dabcan hadda haddii ay noqoto in isku raaco dabcan in xildhibaanadaasi ay kaga hor imaadeen sida waxay noqonaysaa in sanadka uu isku difaaco. dhanka kale waa xasuusataan ciidankii booliska ahaa ee dalkani Kenya oo u diray Haiti missionkii dabcan Mareykanka uu kaga qayb gelinayay dalkaasi Kenya. Ruto uu dabcan noqonayay madaxweynaha Afrika ugu horeeyay ee military u dira dhankaasi qorbaha. ciidanka dalka Kenya ee Haiti ku sugan ayaa hadda waxay dabcan ka cabsi qabaan in tirada ciidanka uu ku yaraado. sidoo kale lacagaha iyo dhaqaalaha loo diray uu ku filneen, hubka iyo agabkii ay ku dagaalamayeen sidoo kale in uu gaabad mise ciriir uu kaga jiro. sanadkii hore xilligan oo kale ayay ahayd waqtiga la diray, sanad ayaa ka soo wareegtay ilaa iyo maanta. dabcan howlgalkaasi way wadaan, waxayna ka codsanayaan dowladda iyo dowladaha kale iyo hay'adaha kale ee markaasi taakuleynaya barnaamijka mise mashruucaasi in ay arrimahaasi kaga hortagaan si missionkaasi uu successful u noqdo. dibadbixii dhacay Arbacadii la soo dhaafay 25kii June ayaa dabcan waxaa farta lagu fiiqaya laguna eedeynaya siyaasiyiin badan oo dowladda la safta ayaa waxa ay taagan yihiin waxaasi dhami waxa ka dambeeya mucaaradka ayaa soo abaabulaya, soo qaban qaabinaya, isku soo dabaridaya dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda dalkani Kenya ee William Samoei Ruto. mucaaradka haddii ay ka fiirsani waayaan waxaa lagu qaban doonaa gacan bir ah mise gacan adag. Sasa ile kupembelezana na wakora ati wanapewa bondi ya pesa kidogo alafu wasunguke hapo wakuja tena kupigana na polisi, lazima ikwishe. Tumeelewana? Ile shida yenye inafanya hata polisi za wengine ipige wakora risasi ni kwa sababu wanashikwa, wanaenda, wanarudi, wanakuja kuchekelea polisi kuambia sasa tulifika wapi, hakuna penye tumeenda. Si ni ukweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Wamsaga ni sawa, wanataka kuchungwa ni sawa, mtu mwenye anaripoti wakora
ni sawa, lakini mtu mwenye anajaribu kuenda kuiba bunduki ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki, shika mtu ananyang'anya bunduki, hapa mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kupembelezwa, anakuja bunduki ni madasi. Lakini wananchi wa area hapa mwenye anakuja kuripoti, mwenye amekuja kukosea nini, mwenye amefanya nini, anaandikiwa, unapeleka kotini, hiyo anapeleka kotini. Lakini mtu mwenye anakuja kuchukua bunduki wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani Kenya Murkomen ayaa waxaa la hadalhayaa muuqaal soo shacbaxe uu dabcan dowladda sabab booliiskan dhehe uu ku amrayo inay dilaan adeegsadaan hubka ay haystaan una noqonin mid markaas sharaxaad kaliya ah haddii dambe uu dibadbax noocaasi oo kale ah uu dhaco. waxaa la qeexayaa oo la sheegayaa in dibadbaxaasi uu ahaa midkii ugu darnaa ebid ee dalkani ka dhaca, inkastoo dadka kale ay qabaan in arrimahaasi ay waxba ka jirin, badana ay soo abaabulayso dowladda falalka dambiyada ah ee ka dhacaya mar walbo dibadbax uu jiro dalkani. waxa uu Murkomen ku amraya booliska dalkani in ay adeegsadaan hubka ay haystaan haddii mar dambe ay dhacdo taasi oo kale. sida ku dhici kartaa in nin boolis ah uu ka carro shacab adoo haysato qori dila cid walba isku dhacdo in falkaas oo kale ay ku laabato mar dambe. muuqaalkaasi ayaa laga hayaa Murkomen, aad iyo aad ayaa loo cambaaraynayaa, loo dhaliilayaa Murkomen siday ku dhacda in nin wasiir ah uu amar ku bixiyo in shacabka mise dhalinta mise da'yarta ay u dhintaan gacanta ciidanka dalka kuwii la rabay ee la filayay inay markaasi badbaadiyaan shacabka. ugu dambeyn falcelintii ugu darneed ee laga falceliyo dibadbaxyada dalkani ka jira waxa ay ka qabsoontay mise ka dhacday baarlamaanka dalkani Kenya. xildhibaanada ayaa waxay ku qaateen hadallo aad iyo aad u kulul. inta badan ee taageeraysa dowladda dabcan waxay farfiiqayaan Rigathi Gachagua, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkani Kenya. sidoo kale Matiang'i waxa waaye wasiir hore ee dalkani Kenya, isagoo markaasi hadda doonaya kursiga madaxweynenimo ee dalkani doorashada soo socota. waxa uu ku eedeynayaa dowladda isagana xadgudubka iyo xagjirka iyo brutality-ga ay markaasi booliska u geysanayaan shacabka. dhammaan arrimahaasi markii la isku soo wada duubo waa waxyaabaha ugu hadal haysta badan maanta dalkani Kenya. ilaa iyo kulanti dambe, ciao, mac salaam.